dadka shaki ka yara jiro amba dhibaatooyin ka yara shakisan yani creatine iyo waxyaabaha ay tahay magaranaysa ka warorin videogan sharaxaad dhameystiran oo creatine xagga muruqa oo kaliya maaha nolosha dhan يعني waxyaabo aanad ka filin marka faa'iidooyinkeeda muruq inuu ku weyneynayo waxyaabaha way kamid tahay laakiin shan faa'iido oo kale ayaynu horta ku sharaxaynaa videogan ka muruqana halka ugu dambaysa ay geysanaynaa yani hadhow baynu imanaa faa'iidooyinka kale oo nolosha uu ka leeyahay ayaynu ku horeynaa waxyaabo badan bay faa'iido ku leedahay aan ahayn kaliya muruq ursan karaysaa cirka tigi karaysaa sanka sida umrisid asaa uga qaatay sanka كرياتين ما waxaan laakiin كرياتين kale weeyaan taasi hadaba inta video gina horta su'aalaan basiiro degdeg dul marina ko كرياتين man ku xanuunsanaya waa kuwa dadku yiraahdaan de xanuun iyo waxyaabaha keentay kaliya iyo waxaas ku fadhiisanaysa hadii kaliya markii hore ku fadhiisan lahaayeen de macnaheedu ma ayna seetid wixii ku dhawaay cuntay waaniga imka maanta luka jaway dhahda garfadhiya saakan ku soo fadhiyo weeyaan marka may laba كرياتين teba ugu fiican amba taa ugu wanaagsan qaadan karay waatee horta waxaan wala soo baaray wala eega gabi inay kala wanaagsan yihiin kale waxa la soo saaray inay wuxuu bas ku wada midin waxa kaliya tii ku kala duwan waa dhadhankaasun marka ta kuugu qiimaha yar leh ugu macquulsan هلي كريسيد تاسون سك قادو اي مونوهيدريت ku qoran tahay كرياتين مونوهيدريت ta saddexaad inta ka qaadanaya 10 gram amba 5 gram laba malqaadood amba malqaad kolba ka jeceshay ta afraad hadan baruur jarayo man qaadan karay hadan baruur jarisid amba dad isku kordhinaysid wax kolba ka rabtid oo qaadan karaysaa miisaankaagu ba ku yar kordhiya laakiin waxa ku kordhay ma aha baruur ee waxa ku kordhay waxa weeyaan muruqii biyo galeen marka biyuun ba ku soo biiray jirkaaga weeyaan macnaheedu tashanaad faa'iidooyin kale ma leedahay aan muruq ahayn oo inta kaga hadlayno videoga ko faa'iidada koowaad waxa weeyaan 20% maskaxdaada shaqaynteeda ay ku kordhinaysaa memory-gaaga way ku hagaajinaysaa short term memory-ga aad iyo aad bay ugu wanaagsan tahay waliba xaalado marka culusiin processing-ka maskaxdaadu amba shaqaynta amba habkay u shaqaynayso maskaxdaadu ay wanaagsanaato xaaladaha adag ee xaaladaha stress-ka aad ku jirtay xaaladaha dhibaatooyinka aad ku jirtid inaad dhibaatadii ku haysatay inaad caadi xalkeedii ula timaadid ay ku saamaxaysaa barta inoogu joojiyo dabacad naasiro maxaa tiri كرياتين sixir ma inaga kala daadeen eeg waa run waxyaabo badan oo imka inta ka sheegay laakiin habkan u dhayoon ba khaladayd eeg maaha way iyada ka dhigaysa sida iyadu kaama dhigaysa sidaas laakiin way kugu caawinaysaa haddii maskaxdaadu dhinaca u jeedooyaan yani hadda sidahay caas ka yara dhig taasay kugu caawinaysaa kaliya ta maaha muruq dhistaan oo aniga ku sheegay marka waxaan iska leeyahay ma research caadiya oo baaritaan caadiya ayaaba sheegayba Creatine supplement can improve short-term memory, reasoning, and mental processing, especially during period of mental fatigue, sleep deprived, or stress. It works by increasing physiocreatine. Adu waxa orday taga baxay muhiimadu waxa weeyaan creatine ta maskaxdaadu way qaadataa ya kaliya ta muruqaagu ma qaadanayo maskaxdaadii iyaduna way u baahan tahay creatine sida caadiga waa wax natural oo markiis horeba liverkeena uu produce kareey markaad hilib cuntid hilibka uu ku jirtaa creatine ta cid ka soo saaraysaana waa liverkii waa beerkii talabaadna waxa weeyaan horta intaynaan gaarin talabaad wadi yara xasuusta markaan depressionka iyo dhibaatooyinka markay ku yara haystaan inkastoo aaminsan wax la yiraahdo depression oo bini'aadamka ay isgeliyaan waxa iska dhaadhiciyaan depression bay haystaa nin weyn baa tay markaas ku leeyahay depression bay haystaa oo wax qabo dadka depression ku badan ka qabsada waxa weeyaan dad aan wax allaali waxay sameeyaan u yiryahay yani macaankii baa ka farabatay iminka depression laba qof u qabsan karaya qof xoog raaxo u tahay noloshiisu oo qofkaasi wax allaali wax dhibaato ah oo noloshiisa uu soo maray ma jirto oo macaan buu arkay afilla taga saacadoodba TikTok buu ku jiraa wax hadaf ma laha guriga kama soo baxo aduu xitaa ka soo baxana dad isagoo kala buu tagayo bilaa hadaf wax allaale wax rajaa nolosha aan ka lahayn oo sugayo inuu wuxuu yimaado amba inay wadanka ka baxaan amba inay shaqo helaan marna aan gacanta ku qabanin noloshooda of course marka depression baa kugu dhacay bini'aadamku u baahan yahay dhibaato يا وأنه شاهي سيد دباتو كو قبصتو دباتات waxaan u jeedaa yani inaad adu culaysiisa saartid amba kubad ku biir amba isku day inaad business blowdid amba isku day adu wuxuun qabo adu dhibaato inaad isku soo biirisid oo wax maskaxdaadu mar walba ay la shaqeyso way u baahan tahay amba gym gal amba wuxuun sameeyay hadii uu fiirsto qof bilaa hadaf buu qabsadaa depression qof hadaf leh deemsaga waqti waxa inuu depression labaadna uu jiraayo taasna iska like masaakiinta imka Palestine oo kala joogta qof waa ka dhimanaya amba nin weyn waxaad arkaysaa ciyaalkiisii baco ku sida baco yani si loo gogooyay amba qaraxii ugu dhacay
dadkaas oo kale dhibaato weeli haysta marka dadkaas oo kale oo ka naxaysa ma garanaysaa depression kaas aad weeyaan oo ilaahay ba kugu taskareynaya ma garanaysaa laakiin mar walba dhibaato ka haysto amba depression kaas ka imaado adduunkan uu ilaahay kugu imtixaamayo oo uu eegayo inaad ka soo koobi karaysid dadka ugu dhibaatada badan leh amba ilaahay uu ugu imtixaanka badan yahay waa dadku ugu jecel yahay baa leeyahay markasta dii aad dhibaatooyinka aad sidaa u eegto tiraadinayo waa imtixaan ilaahay oo dee hore uga socotid dee waxaa ka adag yaa gidaar aan la jebin karin baa tahay markasta laakiin depression ka yaree kale sida macaan u raadinaysay aad gashay halkii ugu dambeysay ee dopamine ka dhamaaday dopamine la-aan baa ku haysa gebigeeguba dopamine ku raacayeen xayare hormoonka yaree macaanka kaws gareeyaan bas sababo macaanka ayaa la yidhahdaa dopamine kaas markuu kaa dhamaado sababta aad iskaga dhameeyay waxyaabihii macmaanaya tabisid marwalba wax macaan qabatay dopamine la soo deynaya haddii aad loo soo daayo dopamine-kiina dee waxyaabihii yaraa caadiga ahaa ayaad ka rahaysaa dadkii la hadalkoodii soo bixitaankii waxyaabihii normalka ahaa oo dhan bad kiraasanaysaa tiktokan badan iyo waxyaabahan oo dhan hadda iska ilaalisid amba eg joojiba ma yaraysid oo si macquula aad u wadid dee waxaan oo dhan caadi bay noqonayaan marka waxaas waxa la yidhahdaa mental health haddii aad mental healthkaagu xun yahay depressionkaagii baa badan haddii mental healthkaagii uu wanaagsan yahay depressionkaagii iyo waxyaabahan sadness iyo stresska iyo waxyaabahan oo dhan stress wuu ku yar qabsanayaa laakiin markiiba waad ka baxsanaysaa sababta mental healthkaagii baa wanaagsan marka mental healthka ayuu saameysaa creatintu mental healthkaagina way wanaajinaysaa waxaan usoo marinay intaasoo dhan sharaxaadaasoo dhan usoo gelinay waxay ahayd qodobkaas mental health haddaad u baahatid coaching aan kaa cuniyo cuntadaada aan kuu sameynayo program hagaagsan oo kuu fududoo joogtayn kari sidaan kuu soo koobiyo waxaan oo dhan aan ka hadlayiyo dheeraad dad badanoo hore kusoo caawiyo ku gaadheen meel aad iyo aad u wanaagsan muddo kooban waxaad taabataa linkiga yaala descriptionka amba commentska ta saddexaad waxa weeyaan xoogga lafahaagu caadiyan waa waxaynu ku taagannahay badda imika yaa waxaan structureka kuu siinayaa ee kuu saamaxaya inaad lugaysid dee waa lafahaagii iyo muruqyadii ahaa iminka haddii lafa lagaa saaro oo keliya ta muruqyo hilib iyo organiskii aad noqotid dee gebigaaguba biyuunbaad noqonaysaa saasoo kala dhacaysa waac wayna wada ogna taas laakiin creatintu waxay ka qayb qaadanaysaa in lafahaagii ay adkayso ay lafahaagii leban ka dhigta dee wax adagoo gebigiisuba xabaddu way kaa dhexbaxaysaa caadiyan yani inta axadkaama gaadhay magaranaysaa xabadugaama dhexbaaysa dad creatin cintid maxaad moodaysaa meesha halkaad ka jebi lahayd marka wax yar kugu dhacaan amba aad tahay qof lafihiisu aad iyo aad u jilicsan yihiin oo jajabitaankiisu markuu yaraa aad usoo jajabayay dee lafahaagii wax ka siin weyaa macnaheedu laakiin creatinku waa xalkii oo lafahaagii ay aad iyo aad u nafaqaynaysaa u saamaxaysaa inay adkaadaan markaagii hore waad daamaysaa horta taa waan ku ballan qaaday ta afraad waxa weeyaan waxay kaa yareynaysaa daalkii iyo fatiigii laba daalitaan baa jira daalitaan jidheed iyo daalitaan maskaxeed labadaasay u kala qaybsamaan daalitaankii jidhka ayay kaa yareynaysaa daalitaankii maskaxdana way kaa yareynaysaa labadaba way kaa yareynaysaa daalitaan wax la yidhaahdo way kaa yareynaysaa horta marka haddii aad caadiyan aad tahay qof haddii uu maanta qaado 2 jawaanoo bariisa daaliya dee halkaa dhabarkiisu ku xanuunayo lafihii oo dhan wax walbaaba ay finish ka noqonayaan waxaa laga yaabaa 4 kiish markaad qaadid inaad ku daashid kabacdi markaad creatine aad wadid oo laga yaabaa yani maaha 4 kiish waa tusaalun yani intaasoo keliya waad ku daalaysaa kuma dhihi laakiin waa tusaalun daalitaankaagii ayay kala badh yaraynaysaa yaa waxa kuu saamaxaysa inaad libilaab markaad wixii samaysid wixii aad markii hore ku daalisay libilaabkeed ay kuu qaadaysa inaad ku daashid iminka haddii aad creatine caadiyana qaadid daalitaanka ma jeedo kii hiiraagay markaad caratid inkastoo taana ay ka qayb qaadato athleetyada Cristiano dadkan kubadda ciyaara iyo dadkaas oo dhan ay qaataan creatine iyo supplementiyo badan oo kale oo iyaguna ku caawiyo waxyaabahaas qaarna ay qaataan ba irbadayo waxyaabahaas qaarna ay qaataan maaha like way u badiyeen be haddii aad gaadhid top level yani worldwide haddaad noqotid waxyaabo waa lagugu qasbaya inaad qaadatid creatine oo keliya tan aan ahayn yani PEDs performance enhancing drugs waa lagugu kalifayaa inaad qaadatid sababtaa worldwide dee duunkii ayaa la tartamaysaa soo maa inay dadkan ku daawanayaan ay idhaahdaan maalin waan gaadhiya hebel laakiin creatine
aad iyo aad bay u caawisaa dadkan athlete-ka haddii noqoto dhinaca stresska haddii noqoto dhinaca fatiga daaritaanka haddii noqoto dhinaca stamina iyo cararka iyo daalka waxaas oo dhan way ka qayb qaadanaysaa creatine-tu haddaad u fiirsatid markuu amba kubad ciyaaraya amba basketball ciyaaraya amba wuxuu doonaba uu sameynayo strategy baad u baahan tahay yacni waa inaad ka sii fikirtaa qofkan kugu soo socda amba ku nasiibisaa wuxuu sameynayo sababtaa intaasoo jeer bay dadkani kaa soo horbaxeen fikiritaanka waxyaabahaasna daal bay maskaxdii ku sameynayaan daalkaasi kuguma dhacayo haddii aad karitiin tii aad badiysid haddaba tii shanaad ee dadkao dhan wada yaqaaneen aynu imanaa muruqii karitiin haddaad qaadatid sida caadiga waxyaabaha kaloo dhan muhiim maaha haddii noqoto whey protein mass protein waxyaabahan oo dhan waxaad ku bedeli karaysaa cuntadaadii waxaa loogu talagalay supplement waxa lagu yidhaahday haddii weeyaan ay kaa yar tahay cuntada kale malaha markaas ay cuntada kale aanad kordhin karayn sababtoo ah meeshaad joogtid bay kuga xariiran amba cunto kale ayaad weyday daraadeed ayaad usoo qaadanaysaa whey iyo mass iyo waxyaabahan kale creatine-tu way ka muhiimsantahay supplementyada kale oo dhan sababtaa supplementyada kale iyagu waa supplement marka lagu leeyahay supplement yacni cunto markaad weydid ayaad iyada soo kordhisay sidaan ka hadlanay Soomaali creatine-ta marna kuguma filna intaad ka helisid cuntada hilib haddaad imika cuntid proteinkaad ka helisid aad iyo aad buu wanaagsanaan karaa haddaad cuntid imika misir hilib beed laga yaabo inaad gaadhsiisid 150 gram amba 200 gram oo protein maalintaadii si inaba caadi ahayn bay wax kugu taraysaa markaa wiigan uma baahanaysid weeyaan macnaheedu sababtaa wax natural aad ka soo qaatid taasna ka sii wanaagsanto intaasoo mineral oo hagaagsan oo kuu saamaxaya inaad wax kastoo noloshaada ay ku sii hagaagaan haddii noqoto maskaxdii haddii noqoto skinkii haddii noqoto dee nafaqadu u baahnaa jirkii oo dhan energy meel kasta ay ku wanaagsanaato dee waad ka helaysaa cuntadii dabiiciga laakiin weyga weyga keliya ta protein baa ku jira haddana waxba ku yeelin wax ku yar yeelinoo uu soy wax la yidhahdo ay ku jirto soyguna uu kaliifayo in testosteronkaagu yaraado markaa uu yara karaayo isagu haddii ay noqoto laakiin creatine-tu walaa soy walaa wax allaale wax ku jira ma jirto oo dhibaato ah laakiin hilibkii markaad cunaysid dee hilibka creatine kugu filan ma ka helisid waxaa kugu qaadanaysaa inta malqacadda yare creatine-ta aad soo qaaday malqacadda yare creatine-ta aad soo qaaday waxaa laga yaabaa inay ku jirto miis dhan oo buuxa oo hiliba laga yaabaa inay ku jirto malqacadda yar marka aad iyo aad bay dadka ugu yartahay creatine-tu caadiyan hilib xitaa hadduu kugu badan yahay wuu still kugu yartahay laakiin weygu waad ka maarmaysaa haddii cuntadaada caadiga ay wad hagaagsan tahay iyo maaska iyo waxyaabahan yaa cuntadaadoo keliya ta hagaaji waxaan waa ka maarmaysaa weyn laakiin creatine-ta mar allaale mar aad ka maarmaysaa ma jirto marka sidaa u cuntid creatine waxay kugu qaadanaysaa inuu jirkaaga oo dhan si fiican u wada gasho markaad wadid 2 week ilaa 20 cisho meelahaas 20 cisho ilaa 2 week markaad meelaha wadid muruqaagii ayay biyuhu gelayaan mid tusaale ka siinaya kulli wad aragtay caadiga diiro bujujuqsan weeyaan muruqaagu markaanad qaadan creatine laakiin caagad buuxda oo biyo caadi ugu wada buuxaan weeyaan marka creatine aad qaadanaysid caagad caadi u buuxda weeyaan muruqaagii taas macnaheedu waxa weeyaan creatine markaad qaadatid muruqaaga kaliya ta biyo ma soo gelinayso intaad qaadiisay amba jimka intaad waday haddaad push up 20 aad ka jari karaysid 25 amba 30 baad ka jari karaysaa oo waa intii kugu kordhinayso creatine imika sanad haddaad waday mar walbood wadid dee strength-kaaga amba xoogaaga uu sii soconaya haddaad qof natural tahay oo dad waxyaabo PD iyo waxyaabaha aana taaban dee qofkaasi sida caadiga limit buu leeyahay meel buu ku istaagaya laga yaabaa inaad limit-kaa gaadhid 5 sano ka bacdi laga yaabaa inaad limit-kaa gaadhid 10 sano ka bacdi laakiin ma dhaafi karayso 10 sano yaa dad baa genetic-koodu inaba caadi ahayn oo weligood wadi karaya waxaan makaranaysaa laakiin dadka badankoodan ka hadlaya aad u badan tahay adigu yaa eeg waa noqon karaysaa qof genetic-kiisu aad u wanaagsan yahay laakiin dadkaasi waxaad ogaatay inay aad iyo aad u yaryihiin marka probability-gaad ku noqon karaysid qofkaasi aad iyo aad ayay u yartahay markaa dadku caadiyan average-ka waxay ku gaadhaan 13 ilaa 10 sano natural limit-koodii xaggii dabiicad ahaan aad ugu sareysay amba aad ugu dambeysay gaari karaysid 10 sano ilaa 8 ilaa 13 sano ka bacdi ay kugu qaadanaysaa inaad gaadhid natural limit-kaagii haddaad creatine qaadanaysid natural limit-kaagii 2 sano ilaa 3 sano waad ku yar kordhin karaysaa marka waa benefit wanaagsan horta aad iyo aad bay muhiim u tahay waxaan rajeynayaa in videogani wax inaba caadi ahayn kaaga yar tusay dhinaca creatine-ta
aanad soo iibsan kariitiintii kale khaladka ahayd ee cirka ku geenaysay yaa indhahaaga saa ka dhigisay yaa ila hadlay yaa sidee hadda cidna kulma hadasay cidna kulma joogto haddana taasaa tahay taa inaad ku khaldan tan kale oo adoo tan kale u jeeda inaad qaadatid inaad tii kala qaadan sankaad ka nuugisay aad iyo aadna waa mahadsantahay inaad daawatay videoga waa inoo caawa 12 habeenimo luuqa kariitiintii kalan ka iibinaya the fuck